bismillaahi raxmaani raxiim. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti aboon saaxiibadayna ugu xiran oo meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaaraya halkaad inaga daawanaysaan waa barta aanu youtube-ka ku leenahay runsheeg. saaxiibayaal, qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah safiirka Mareykanka oo la xiriiray madaxda maamul goboleedyada iyo Cali Guudlaawe oo codsaday in waqtiga loo dheereeyo maadaama ay jiraan caqabado badan oo ku hareeraysan maamulkiisa. maxamuud kuulow oo ahaa xildhibaanada cusub oo geeriyooday iyo ruushka oo tallaabo culus ugu jawaabaya dalal dhowr ah. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadaynugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis la idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan, like-na aan igu dhiirigelisaan, gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle. saaxiibayaal, sida hordhaca warkaygaba aad ku daawateen, haddaynu ku bilowno safiirka Mareykanka ayaa la xiriiray madaxda maamul goboleedyada. sidoo kale Cali Guudlaawe ayaa codsaday in waqtiga loo dheereeyo maadaama ay jiraan caqabado badan oo ku hareeraysan maamulkiisa. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa khadka telefoonka kula xiriiray madaxda maamul goboleedyada dalka isagoo ku adkeeyay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyay 15 Maarso oo ah waqtiga loo asteeyay. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa safiirka Mareykanka u cadeeyay in waqtiga harsan aan lagu soo gabagabeyn karin doorashada kuraasta taala beledweyne. Cali Guudlaawe ayaa sheegay in caqabado badan ay ka hortaagan yihiin doorashada kuraasta beledweyne isagoo codsaday in waqtiga loo siyaadiyo amaba loo dheereeyo. waxa uu xubno xog ogaal u ahaa wadahadalkaasi ay noo xaqiijiyeen in waqti dheeri ah la siiyay Cali Guudlaawe. intii uu socday wadahadalka ayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, koonfur galbeed iyo Puntland waxay safiirka u xaqiijiyeen in xubnaha ka harsan doorashada deegaan doorashadoodu ay taala halkaasi ay kusoo gabagabeynayaan ka hor 15 bishan. safiirka Mareykanka ayaa sidoo kale Axmed Madoobe kala hadlay xaalada doorashada Garbahare oo taala 16 kursi. waxa uuna u sheegay in aysan suuragal ahayn in doorashada lagu qabto magaalada Garbahare. madaxweynaha Jubbaland ayaa safiirka u sheegay in caqabado badan ay ka jiraan deegaan doorashada labaad ee maamulkiisa isagoo cadeeyay in Jubbaland ay doonayso in doorashada kuraasta lagu qabto meel aan ahayn Garbahare. marka laga soo tago safiirka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeysanaya in heshiiskii 17 Sebtembar aan waxba laga bedeli karin oo uu sidiisii ahaanayo. Axmed Madoobe hogaamiye Jubbaland waa ay ku adkaanaysaa inuu ka wareejiyo Garbahare doorashada 16 kursi. madaxweynayaasha Galmudug, koonfur galbeed iyo weliba Hirshabelle waxa ay mar walba ka go'an in ay doorashada laba deegaan doorasho ka dhacdo sida ay iyaguba hadda ay ugu howlgaleen. xog ogaal ayaa waxay noo xaqiijiyeen in hogaamiyaha Jubbaland uu doonayo in 16 kursi ee taala Garbahare laga wareejiyo loona wareejiyo degmada Ceelwaaq ka tirsan gobolka Gedo. Axmed Madoobe hogaamiye Jubbaland waxa uu la socdaa haddii 16 kursi Garbahare lagu qabtay in 16 kursi ay gacanta u galayaan Villa Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. midaasi Axmed Madoobe dhibaato isaga ku ah. ila ku dhow safiirka Mareykanka ayaa sheegay in uu arinta Garbahare uu kala hadlayo madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedyada oo ku aadan aragtidooda, waxaana madaxweynayaasha Galmudug iyo koonfur galbeed u sheegeen in ay muhiim tahay in heshiiska 17 Sebtembar loo fuliyo sida loogu talagalay iyaga oo sidii la rabay ay u fuliyeen maamul goboleedyada kale. warar soo baxay ayaa sheegay in hogaamiyaasha Galmudug iyo Hirshabelle ay diidan yihiin in deegaan doorashada laga wareejiyo Garbahare iyaga oo mar walbaba codsanaya inaan heshiiskii 17 Sebtembar aan waxba laga bedelin. doodaha qaar ee ku salaysan arinta Garbahare ayaa tilmaamayay in laga gudbo kuraaso oo la fariisiyo baarlamaanka si loogu xaleeyo si aan loogu xayirnaan hal deegaan doorasho maadaama waqti badan hore loo lumiyay iyadoo dib looga raadinayo xal ay ku dhici karto doorasho nabdoon oo ku qabsoonta gobolka Gedo gaar ahaan Garbahare. qodobada kale aan saaxiib idiin haynana waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa geeriyooday iyagoo shaki badan ay ku hareeraysan yihiin waxa ku dhacay. faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan geerida Allah u naxariistay Maxamuud Kuulow oo ka mid ahaa xildhibaanada cusub ee golaha shacabka oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. geerida marxuumka ayaa warar horraaca u helay Runsheeg TV sheegayaan in uu si nabad ah ku caweeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay sheegayaan saaxiibadii ugu dambeeyay dad uu arkay xildhibaanka, waxaana
shalay waa berigii isaga oo nabad qaba la geeyay halka uu ka degan yahay Nairobi. Geerida marxuumka ayaa waxay naxdin iyo amakaag la noqotay saaxiibadiisii uu la caweeyay in meedkiisa guriga loogu tago isagoo aan qabin wax xanuun ah ama uu u sheegay, iyadoo darawalkiisii uu guriga ugu tago 5 galabnimo uu doonayay. siyaabo kala duwan ayaa looga hadalhayaa geerida marxuumka iyo shaki badan oo laga muujiyay geeridiisa maadaama uu caafimaad ku seexday wax xanuun ahna aysan jirin. inkastoo aanay caddayn in la dilay iyo in kale, haddana shakiga arrinta ku aadan ayaa mid xoogan. xildhibaan kuulow ayaa bishii hore ee February loo doortay ama lagu doortay magaalada Kismaayo isagoo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hob 79, waxaana geeridiisa ka tacsiideeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumku uu ka mid ahaa bulshada dadka waxgalka u ah ee ka soo qayb qaatay shaqooyin badan oo ay ugu muhiimsan yihiin arrimaha bulshada oo door muuqda uu ku lahaa, isagoo ka mid ahaa dadka sida weyn u garab istaaga dowladnimada Jubbaland waqtigaasi iyo maalkiisana uu huray, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa sheegay in marxuum Maxamuud Kuulow uu dhawaan loo doortay xubin ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana madaxweynuhu si gaar ah ugu tacsiideeyay eelada iyo qaraabadii uu ka baxay xildhibaan Kuulow, isagoo alle uga baryay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo. waa xildhibaankii u horeeyay ee ka geeriyooda xubnaha weli ay socoto xulashadooda iglaha shacabka, waxaana maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. qodobada kale aan saaxiibayaalidiin hanana waxaa ka mid ah Ruushka oo qaaday tilaabo culus oo uga jawaabaya dalal dhowr ah. Ruushka ayaa cunaqabateyn ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday Ukraine ay ku soo rogeen dalal dhowr ah ayaa qaaday tilaabo markooda ku beegsanaya wadamada xayiraada saaray hantida Moscow. tilaabadan ayaa hoos u dhigaysa cadaadiska saaran maadaama wadamada reer galbeedka ay kula dagaalamayaan dhaqaale, siyaasad ahaan iyo mid af si uu u joojiyo duulaanka 16 cisho uu ka wado wadanka dariska ay yihiin ee Ukraine. xukuumadda Moscow ayaa 48 wadan ku tilmaantay kuwa galaaftay ka dhan ah sameeyay saaxiibtinimada fog ee ka dhaxaysa Ruushka wixii ka dambeeyay markii ay xoogeysatay xiisadda Ukraine oo 24 Maarso 2022 ficil isku rogtay. dowladda Ruushka ayaa dalalka ka soo horjeeda ka mamnuucaysa qalabka isgaarsiinta, caafimaadka, gaadiidka, beeraha iyo korontada ee laga dhoofiyo dalkeeda si markooda ay u dhadhamiyaan culayska la saaray mid la mid ah. xayiraadan ayaa socod doonta ilaa dhammaadka 2022 oo waa la sii kordhin karaa haddii maslaxadeeda ay ka dhex aragto xukuumadda Moscow, sida ay sheegeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka agdhow talaabadan. 9 Maarso 2022 xukuumadda Moscow waxay meel marisay xeer lagu fasiray talaabada koowaad ee lagu qarameynayo hantida shirkadaha shisheeye ee yaala dalka Ruushka. haddii arrintani ay dhaqan gasho waxay sii cakiri doontaa xiriirka Ruushka iyo dalalka isxulafaystay. Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka kale ee la safan ayaa joojiyay saliidda, shidaalka iyo agabka kale ee lagu sameeyo Ruushka oo loo iibgeyn jiray sababo ka dhalatay carada ay ka qaadeen duulaanka uu ku qaaday Ukraine. waagaag saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanaysaan Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubteen waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan, like-na aan ugu dhiirigelisaan, gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle.